munaasabada lagu soo bandhigay buuga sirdoon oo qoray nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Cabdirasaaq Sandheere ayaa waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda marti sharaf kala duwan iyo sidoo kale qoraayo waxaana lagu qabtay magaalada Hargeysa munaasabada lagu soo bandhigay buugaasi la magac baxay sirdoon oo go'aankaasi waxa ka hadlay Cabdirasaaq Sandheere oo ah qoraaga buuga iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadaasi oo ay kamid ahaayeen mas'uuliyiin ka socday wasaaradda macdanta tamarta Soomaaliland shirkadaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga iyo sidoo kale qaar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaar kamid ah xubnihii soo akhriyay buugaasi oo ka marakacay xogta uu buugana gudbinayo waxaanay ammaan u soo jeediyeen qoraaga buuga Cabdirasaaq Sandheere oo ay markaasi ku tilmaameen inuu yahay wax badan laga faa'iideeyo buugaagta oo markaasi qoray mas'uuliyiintii kala duwanaa ee madashaasi lagu soo bandhigay buuga sirdoon ka qayb galay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa caqabado badan buu runtii qoraalku leeyahay markuu qofku wax qorayo markuu turjumayo qof kasta uu dareemi karaa shay kasta oo la qabanayo caqabad buu leeyahay marka caqabadaha kooban saale waxaan xusi karnaa waxa kamid ah qof markuu raadinayo xogtii doonay bulshada inuu turjumo waqti bay ku qaadanaysaa qof markuu doonayo wixii inuu tafsiro waqti bay ku qaadanaysaa qof markuu doonayo wixii inuu daabaco inuu lacag u raadiyo waqti bay ku qaadanaysaa dadaan siinaya waxa weeyaan qorayaasha waxa isku daydaa inaad wixiina ku dhiirataan aad qortaan anu markii koowaad soo saaray buugii koowaad waxaan aad u dareemayo waa 2017 way form 4 baan ahaa waxaan aad u dareemaa rag badan oo yacni iga horeeyay saaxada ay waqtiga aad ugu yar joogsaday oo qaarkoodna aqaano haddana asxaab guudnahay waayo haddii waqtiga aanan jeclay waniyo jibil hayo bari dambe lagu ma arkeen buugu koowaadna uu ahaayo qalad badan isagoo ku jira hadan dhiirini baan ku sii waday buugii wada qalad buu noqday qaladkii aniga inaan saxo isku day laakiin isku mid inaan niyo jabo oo dhaliishii iyo wixii la sheegay inaan u joojiyo isku mid laakiin inaan saxo hormarka socon isku day marka waxaan doonayaa inaad idinkuna saasoo kale cidii jecel weeyaan cid kastana inaad gashaan oo kulama talinayo kumana oranayo ha gelin laakiin hadii ugu fiican adiga garanaya marka hadaad gashan oo adkayso hadaad geli weydana deewta waxaan u mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta ay ugu horeeyeen xildhibaanada iyo gudoomiyayaashii iyo marti sharafta kale ee aadka madasha ama taqaanaya u bilay una yimiday marti sharaftii aan u fidiyeen shakhsiyan ugu dareena runtii soo ajiibay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin hibad iyo haybadu Ilaahay uu bixiyo qofkuna marka buugaagta kale la qorayo dadku lababan bay u qaybsamaan qof wuxuu dadku la wadaagaa fikirkiisa iyo aragtidiisu la wadaagaa qofna wixii uu bulshadiisa dan u ah ayuu markaa uu bulshadiisa la wadaagaa inaad wax qortaay way fududahay laakiin aad waxa turjuntaay way adag tahay mararka qaarkood waxa ka hor imanaya kalmado qalafsan oo meel aad u qaadaba aanad garanayn anu qoraabaan ahaa buugaag badan oo dhowraan qoray 4 buug baan qoray waxaan garanayaa qiimaha uu qoraanimadu ay leedahay adduunyada waxa la yiraahdaa waxa ugu wanaagsan qofka khaladkiisa ka faa'iideysta waxa ka sii wanaagsan qofka khaladka bilaadanka ka faa'iideysta marka buugaynu ka faa'iideysano buugana haynu akhrino anigoo ku hadlaya afka wasaaradda tamarta iyo macdanta waxaan ogaa buugaagta yaala tirada ay yihiin imika buugaagta la balan qaaday waa 100 buug wixii soo hara haduu la yiraahdo wasaaradda qaadanaysa marka qofku haduu buugiisa uu qaado waayo buugaagtaana ka qaadanayna buuga sirdoon oo aan ugu akhriyay waxaan gudihiisa ugu tagay macanihi aan markii hore ka filayay runtii mid ka guda balaaran asliyan ma ahayn dadka sirdoonka xiiseeya laakiin buugani wuu jeclaysay sirdoonka markii aan akhriyay Cabdirasaaq waan ku hambalyeynaya dadaalkaaga barta ka sii wad kuma joogtid qoraal iyo qalin waad u yartahay ilaahayna garabkaaga ha galo ka shirkad ahaan tanagu shirkaduhu kulli waxbaan iibsanaa markaan iibsanaynaa sanadka qorshayaal baan leenoo dadka waan isku daalacnaasilnaayo waxaan raahnaa si aydan buug kasto oo wax taraysa aydan uga harino 4 buug aydan isugu soo ururin buugta tirasiman ha loo qaato marka xagga wax ka balan qaadi doonaa cotton buug inaan qaadan doono cotton kana aan maktabadaha geyn doono waxaan u rajaynayaa anagu inaan balan qaado 5 buug oo 5 gobol runtii library-yada Laascaanood Cerigaabo Burco berbera iyo Gabiley marka waxaan isleeyahay waa buug dhacdooyinkiisu xiisihiisa leeyihiin buugga oo marka hore kulay luqadda carabiga ku qornaana waxay muujinaysaa awoodda iyo kartida uu qoraagu u leeyahay inuu soo turjumo luqadda carabiga erebixinta la isticmaali karo iyo ereyada runtii uu qaniga ku yahay marka waxay kulay xogtaan ka hayaa ama ka ogahay
buwaagtuu turjumay inay tahay buwaag luqadda ingiriisiga ku qoran iyo buwaag luqadda carabiga ku qoran marka xog noocaasa oo luqadda carabiga ku qoran inuu noo turjumay oo waqti geliyey cabdirasaaq cabdirashiid waan ku bogaadinaynaa waana ku hambalyaynaynaa idinku boorinayaa inaad akhriska iyo qur-aanka badisaan waxa weeyaan aqoontu waxa weeyaan waa inta la akhriyo akhriskuna dee waxa weeyaan wuxuu ku imanayaa in wax la qoro oo wax yacnihii la qoray oo waxa weeyaan la daalacan karaa uu jiro marka in qofku uu wax akhriyo oo ogaalkaaga aada ku darsato runtii dhalinyar ahaan waa mid idin caawinaysa guud ahaan bulshadeennana waa mid wax ka taraysa cabdirasaaq runtii aad baynu ugu bogaadinaynaa dadaalada uu sameeyey qoraalada iyo turjumaadahaasba buugaga aynu wax ka kororsanayno oo ogaalkeenna wax ku kordhinayna in laynoo turjumaa oo aynu turjumnaa runtii intaynu wax kala turjumi lahayn waa mid wax badan inoo taraysa 10 buug oo jeebkayga ayaan cabdirasaaq ka qaadayaa buug samatara siinayo iyo mid aanu qaadanayo mooyaane 8 kale dhalinyarta aan awoodin cabdirasaaq iyo hawlwadeennadiisa aan u xisaaray inay u qaybiyaan oo iyagu siiyaan cabdirasaaq waa la kaftanaya kulley hawsha buugga waxay naga dhargiyey 3 saac suuban suhuud iyo sandheero qoray markaa taa laftigeyga xadaaradii awdana